Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello everyone, welcome back to English with Susman, an integrated course for beginners. This is what we have intended for, an integrated course for beginners. Question is and answers. Question is and answers. Hello Ali. Hello Abdi. Good afternoon. Good afternoon too. Good afternoon. Good afternoon too. What do you do? I am a student. And you? I am a plumber. I am a plumber. Where did you grow up? Where did you grow up? I grew up in Somalia. I grew up in Somalia. Who brought you up? Who brought you up? My parents brought me up. My parents brought me up. What nationality are you? What nationality are you? I'm Somali. I'm Somali. waayahay waxaan haddana bilaabi doonaa insha Allah inaan afkanaga hooyo ku sharaxno oo mother tongue insha Allah. Hello everyone. Welcome back to English with Susman, an integrated course for beginners. Question is and answers. Lesson 3 buu ahaa cashirkeena maanta ciwaankiisa. Cashirkii saddexaad question is and answers weydiimo iyo warcelin. Question is and answers. Question is waa su'aalo ama weydiimo aan iyo answers jawaabo ama warcelin. Su'aashu waa hello Ali. Haya Ali. Hello Abdi buu yiri. Haya Abdi. Good afternoon. Galab wanaagsan. Good morning haddii ay tahay subax wanaagsan. Good evening feed wanaagsan. Good afternoon buu cashirkanaga maanta galab wanaagsan. Good afternoon too sidoo kale galab wanaagsan. Good afternoon too sidoo kale galab wanaagsan. What do you do? Maxaad samaysaa? Maxaad qabataa? oo la macnaa what's your job? shaqadaadu maxay tahay? What do you do? Maxaad samaysaa haddii lagu yiraahdo what's your job? bay la macno noqon kartaa. maxay tahay shaqadaada? I am a student. anigu arday baan ahay. I am a student. anigu arday baan ahay. And you adigane maxaa tahay bay ka macno tahay? And you adigane maxaa tahay ama and you adna? I am wuxuu yiri qofkan a plumber. waxaan anigu ahay tubiiste ninka tubooyinka biyaha xaafada geliya. waxa loo yaqaan plumber oo tubiista ama plumber. anigu waxaan ahay tubiiste. Where did you grow up? Question by imaaday. Where did you grow up? xageed ku soo barbaartay ama xageed ku soo kortay? Grow oo up la raaciyay. hayso xageed ku soo kortay ama xageed ku soo barbaartay? I grew. jawaabta markaad bixinayso I grew up waxaan ku soo koray ama waxaan ku soo barbaaray in Somalia. I grew up in Somalia. Somalia ayaan ku soo barbaaray. And who brought you up? yaa ku soo barbaarshay, yaa ku soo koriyay exactly. Who brought you up? adigu yaa ku soo barbaarshay exactly. Who looked after you? Who brought you up exactly? Who kept you exactly when you were young? ilaa aad ka weynaato heerkaan soo who brought you up? yaa ku soo barbaarshay ama yaa ku soo koriyay? My parents waalidiinteyda. Parents ama waalidkayga brought me up ayaa soo barbaarsheen. My parents brought me up. waalidiinteyda ayaa soo barbaarsheen. What nationality are you? jinsiyadaadu maxay tahay? adigu dhalashadaada maxay tahay? What nationality are you? dhalashadaada maxay tahay? I'm Somali. anigu Somali baan ahay. oo lama dhihi karo I'm Somalia. waa qalad. haddii aad tiraahdo I'm Somalia waa qalad. waa inaad tiraahdaa I'm Somali. waa jinsiyadeena. waxay ka hadlaysaa markaas dhalashadana. Somalia is the country. Somalia haddaad tirahdin waa dalkanaga exactly. But Somali if you say haddaad tirahdin waa dhalashadeena ama jinsiyada qofku. I'm Somali. So there are people who say Somalian dad dhaha jiro exactly. So in English grammar marka la yiraahdo Somali is the correct way to say Somali. qofka markuu yahay waa Somali baan ahay pure exactly. Thanks. أدودم هسنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.